بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meel kasta aad joogtaan ba Allah awood leh dhamaanteen waxaynu ka wada baryaynaa inuu naga wada badbaadiyo cudurka safmareenka ee coronavirus iyo cudurro kaleba waa maalinimo jimco ah 11 bisha December 2020 cudurka coronavirus weli waa jira meelo badan oo dunidana waa ku badanaya iyadoo dhinaca kalena talaaladii la bilaabay ogolaashahooda UK-na ay watahay wadanka koobaad ee lagu bilaabay talaalka marka la fiiriyo adduunyada oo dhan waxaan ku bilaabaynaa dalka Faransiiska oo kamid ah wadamada reer Yurub ee mowjada labaad ay si aad iyo aad saameynta ugu yeelatay iyo mowjadii koobaadba iminka sheekadu waxa ay tahay in la soo rogayo nidaam cusub oo ah bandow habeenkii bilaabanaya 8 fiidnimo ilaa 6 subaxnimo taasoo macnaheedu uu yahay iyadoo ay filayeen maamulayaasha wadanka Faransiisku in cudurka tirada uu soo ridanayo ay hoos u dhacayso ayaanay hoos u dhicin inay badato mooyaane taasina waxa ay keentay bal in laga war doono bandowga habeenkii waqti hore la bilaabayo arrinkan isaga ayaa waxaa ka dhawaajiyay ra'iisul wasaaraha wadanka Faransiiska Jean Castex oo sheegay in xukuumadda ay filaysay inay arrimuhu ay yaraadaan laakiin aanay yaraanin taasina ay keentay in xanibaado badan la soo rogo dalka Faransiiska waxaa la filayay in si degdeg ah loo furo meelaha ay kamid yihiin xarumaha dhaqanka iyo waliba museumyada sinimooyinka tiyaatarada iyo goobaha isboortiga laakiin waxaa la yiri ka jooga adinka maahe oo waxaa la yiri 3 toddobaad oo soo socoto dheeraad ah ayaa lagu darayaa inay sii xiraadaan si markaaba loo eego in xaalku uu qumanaado iyo in kale waxa kale oo la sheegay dalka Faransiiska ciidda Christmaska oo soo socotay sanadka cusub qoysasku inay isar karaan laakiin shuruud ayaa lagu xiray waxa la yiri 6 qofood ka badani meel isugu iman karto taasoo loola jeedo dadka haday isku soo qamaamaan inay dhici karto in qaar cudurkii qaboon ogeyn ay kuwa kala qabadsiyaan tiraduna ay si aad u badato dad badan oo ka tirsan ganacsatada kala duwan ayaa iyagu ka dhawaajiyay inaanay ku faraxsaneen arrintaasi laakiin marka la fiiriyo maamulayaasha caafimaadka iyo maamulka sare ee dalka Faransiiska waxay u arkaan xaalku inaanu wanaagsaneyn oo laga maarmaan tahay in xanibaado cusub la soo saaro mar walbana isha lagu eego Jean Castex ra'iisul wasaaraha Faransiiska waxa uu yiri mowjadii labaad ee cudurku ma aanay dhamaan iyadoo waliba ay dhici karto lana saadaalinayo meeshana aan laga saarin mowjad saddexaad ee cudurka coronavirus-ka dalka Faransiiska in laga arko Faransiiska marka la fiiriyo wadamada reer Yurub waxa uu kamid yahay meelaha sida aadka cudurku uu saameynta ugu yeeshay dadka uu ku dhacana waxay kor u dhaafeen ilaa iyo 2 milyan iyo 300 oo kun oo ruux iyadoo Faransiiskana guud ahaan dadka cudurka uga dhintay ay ka badan yihiin 57 kun oo ruux UK oo kamid ah meelaha sida aadka cudurku saameynta ugu yeeshay dhinaca kalena talaaladii ay socdaan ayaa waxa la soo saaraya warbixino iyo waliba digniino ku saabsan guud ahaan cudurka coronavirus-ka waxaa hadlay xogayaha caafimaadka ee UK Matt Hancock waxaana uu yiri goobo kala duwan ayaa waxa laga bilaabayaa talaalka si baaxad leh loo bilaabayo gaar ahaan dugsiyada iskuulada sare oo ah kuwa secondary-ga loo yaqaano arrintaas iyada ayaa waxa la sheegay London, Essex iyo Kent inay yihiin meelaha ugu ba'an marka la fiiriyo da'daas la qaadayo tijaabooyinka iyo sida cudurku ugu faafay wararkii ugu dambeeyay waxay sheegeen saddexda goobood ee xagga London iyo waliba Essex iyo Kent inaan lala sugi karin dib u eegista dib loo eegayo cudurka coronavirus-ka 16 bisha December waa 2 toddobaad ee loo ballamay ee uu yiri Matt Hancock ka hor ay u baahan yihiin qolyahaasi in la eego kadibna heerka ugu sarreeya xagga digniinta iyo feejignaanta markaasi la gaarsiiyo arrimahaas iyaga ayaa waxa la arkayay in Kent halkii la yiraahdaa iyadoo ay xaaladii saddexaad ku jirtay digniinta laakiin London iyo Essex ay tahay laga maarmaan mar haddii la arkay tiro aad u fara badan oo cudurku uu soo ridanayo marka ka dambaysa arrinka ku saabsan dugsiyada sare in laga eego cudurka qofku calaamadaha muujiyo yaanu muujin ayaa waxay ardadaasi da'doodu u dhaxaynaysaa 11 jir ilaa waliba 18 jir iyadoo dhinaca kalena Matt Hancock uu sheegay in laga maarmaan tahay iskuuladu inay furaadaan si waxbarashada tayadeeda kor loogu qaado marka daba la fiiriyo UK arrinkeedu waxa uu yahay mid wajiyo kala duwan leh laakiin digniintu marka ka dambayso ay soo baxayso iyadoo talaalada la bilaabay maalintii talaadadiina ay si quman u socdaan oo loo qoondiyay ilaa iyo 73 isbitaal oo guud ahaanba ku baahsan UK oo la talaalayo dadka qaybahooda kala duwan markii la ogolaaday toddobaadkii hore talaalka Pfizer iyo BioNTech kaasoo waliba laga keeno laga daabulay qaybihiisii ugu horeeyay xarun ku taala wadanka Belgium oo loo arkay meesha ugu dhow ee laga keenay markay shirkadahaasi ay diyaariyaan waxa UK ay filaysay maalmahan ilaa iyo 800 oo kun oo doos oo lagu bilaabayo kadibna ay isdaba socdaan qaybaha kala duwan oo ay ka dalbatay marka la fiiriyo Pfizer iyo BioNTech oo ay ka dalbatay ilaa iyo 40 milyan oo doos dhinaca Moderna oo aan weli la aqoonsan ama aan la ogolaan ee Mareykankana ay ka dalbatay 7 milyan oo doos AstraZeneca iyo Oxford UK ay ka dalbatay ilaa iyo 100 milyan oo doos
marka daba la fiiriyo UK 24 saac ugu dambeeyay cudurka waxa laga arkay dad aan ka yarayn 20,864 ruux 24 saac ugu dambeeyay UK cudurka waxa uga dhintay 516 ruux tirada guud ee UK cudurka coronavirus uga dhimatana waxa ay gaarayaan 63,082 ruux marka daba la fiiriyo guud ahaan dunida xaalku waa xaal aan qumanayn meelaha qaar si aad iyo aad ayuu cudurkuna u faafaya iyadoo meelaha qaarna xaaladdu ay degan tahay laakiin ilaa iyo haatan talaalka UK laga bilaabay marka laga reebo xagga Canada ayaa laga ogolaaday iyo xagga Bahrain iyadoo meelo badan la filayo sida Mareykanka iyo meelo kale inay ku xigaan oo dhammaan shirkadaha socodsiyo kala duwan ay u gudbisteen wadamada adduunka oo la filayo in la gaarsiiyo su'aal ayaa timid laga jawaabayo oo ah dadka dhaqaalahoodu fiican yahay ee wadamada iyo kuwa liita sida talaalka loogu qaybinayaa qolyo ayaa jira u ololeynaya arrintaas oo ah in qof kasta adduunka ku dhaqanay uu talaalka cudurka coronavirus uu helo taas oo macnaheedu uu yahay markay caafimaadka timaado inay muhiim tahay in adduunyadu ay iskaalmaysato guud ahaan marka la fiiriyo talaalka ayaa laga warsugayaa marka uu ku baaho guud ahaanba caalamka shalay su'aashu waxay ahayd talaal ma la helayaa iminka isla wadamadii adduunku waxay isweydiinayaan sidee talaalka lagu gaarsiinayaa guud ahaanba adduunka maadaama meelaha laga soo saaraya ay yihiin meelo kooban oo juqraafi ahaan ka fog meelaha inta badan baahida talaalka adduunku ay ka jirto marka daba aynu fiirino fariintan iyada ee maalinlaha ah ee cudurka coronavirus waxa fududeeya sharikada dhinaca qaadista alaabooyinka xagga UK laga qaadayo lana keenayo xagga Soomaaliya guud ahaanba la geenayo lagana keenayo waa sharikada lagu magacaabo Parcel Host oo fadhigeedu yahay UK xafiiskeeda weynina uu ku yaalo bariga magaalada London 473 High Road Leyton halkaas oo uu diyaar ku yahay ganacsade Axmar Barqadle iyo waliba iyadoo halkaas laga heli karayo oo kale DHL-ka guud ahaanba adduunyada oo dhan la isaga daabulo alaabooyinka hadda diraysidii hadii lagu keenayo intaba ganacsade Axmad Barqadle waxa kale oo bulshada u haya guud ahaanba telefoonada noocyada kala duwan ee kuwa ugu dambeeyay iyo cunooyinka kala duwan waxaana lagala xiriiri karaa telefoonka eber 7949512877 dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan badhib iyo dheef waxay la wadaagaan dadweynaha dunida waxaana laga rabaa inay islaaliyaan ay feejignaadaan baryada ay badiyaan nadaafadana ay ku dadaalaan inay dhageystaan awaamirta ka imanaysa maamulayaasha dalalka ay joogaan iyagoo aan iloobi in halku dhigi ahaa walaalle ha ii soo dhawaan yaana kuu soo dhawaan yaana isu soo dhawaan aan kala fogaano baryada aan badina nadaafadana aan ku dadaalno maxamed axmed xaaji cagmadhiga iyo bahda telefishinka caalamiga Universal ugu qaabilsan arrimaha ka wacyigelinta bulshada cudurka coronavirus oo idin leh annagoo kariimkeena kaashanayna kaalinteena aan ka qaadano ka hortagga coronavirus ma sha Allah